بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركله isku soo noqdo wanaagsan hadii aad qiimaatay dhanka TikTok halkan aan ayaa kugu balamiyay meel saxsan ayaana joogtaa hadii aad nagu cusub tahay oo aad qiimaatay dhanka TikTok ha moogaanina subscribe kana taabatid qaybta hoosana igu sheeg hadii aad hore subscribe igu ahayd iyo hadii aad cusub tahay in aad from TikTok aad qiimaatay mawduuceena gudaha oo sii galno mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay barnaamijka cusub ee lagu soo kordhiyay TikTok ee loo magacaabo Creativity Beta Program intee wadan ayaa mataqaanaa loogu talagalay ama loo soo deeyay hadii aan wadamadaas aad joogana maxaa laga baahan yahay oo shuruudo ah oo ku xiran okay barnaamijkaas waa barnaamij aad muhiim ah oo barnaamijyada YouTube-ka iyo Facebook oo kale ah lacag badan aad ka sameyn karto hadii aad ka mid tahay dadka views-ka badan haysto ama active-ka ka ah TikTok-ka ee mar walba creator ah ama dadka waxyaabaha soo galiya okay marka koowaad waxa idin geenayaa shaashada computerka si aan halka idinku dheereen isora okay waxa joognaa shaashada oo computerka joognaa kadibna waxa soo kicineynaa Google Chrome-ka kadibna meeshan kor waxa ku qorso ujeedin Creativity Beta Program Eligibility Countries macnaha wadamada oo loo ogol yahay ama wadamada markaas loo soo deeyay ayaa mataqaana aan ka hadlayna anaga okay maxaana yaana loo ogol yahay يا لو أقولها مهمة دي سكلتنا حواي لو أقولها أوكي ماشي حواي who is eligible for TikTok creativity program beta وحلو أقولها هرتوا إن هاتا سدين إتوان سنة وإن أد كويناتها أما على إكتر هدي أد أنت أما تقانا أكير تاني كاتو هويدا يا أباها هكو سميان أوكي you have at least 10,000 followers وإن هايسات توان كن وما تقانا ومعناها followers أهايسات وجران إنها هايساتيد واي إن صدق كبير للصورة فهم بيش للصورة في وإن أد حيستا إن العريس أهان بقول كن ومقالة أسوق لس إن للدعوة أوكي and have a personal account that in a good standing أوكي معناها عوان كاجنا وإن أوصل لهن copyright account warning مثلا account warning يوحصل لها كلا لكن إنه stand في عن هذا أو وحيابها لن أو لسكودي ده إنه safe كهذا صالان كوبيرات فربضان هرودة عن أما كوبيرات وكذا عاي أما أو حيرينها محياب إيك قلديهن هذا كود سان لو حواي إن أو متقانا حالة ديس أو ناس انتهاي إن عوان كاجا أوكي مثلا لو حواي تيك توك كوميونيتي قال لنا نسكن إنه متقانا أسيجنه أو إيشك أو كم ده بنان هذا أو نلهن أو ضد خقاون يو ضد الدلاي يو ضد السكودراي يو ضد إسعاينا وحياب هذا أقولين إن لو سوق بين تن قدام بس وحواي مركب وهو located in جوجتوا US France وبرازيل مركا هذا فرانسيسك جوجتيد وهو يوروب تمك الله يوروب أن فرانسيسك كجوجتيد ليه متقانا دانس لهذا مريكان وبرازيل مريكان ضد فربنا هرو جوجت سومال بدنا جوجتو US نسيدو كانت مركا هذا حدا فربنا وحس كده عسينا يعني كورن أنا هذا أكون كي أقولي وقف فرانسيسك جوج كورن قف جوج مريكان كده أوجي عينك أقولي أوكي إن تيك توك هذا سوى سونا سومالي وكحرين يحي إن لعق لجاسو بحقف وسومالي جو وجيم لو ديلي لعق تاس وحين قنصة إنه قف كسرفو ودب قفكات وعيار ويوروب تجوجو أم أكون عصب السمية كل جارسي كدب لو عيار إنه قنصة كدب لعق راسو أوكي تيك توك قفك القيام ذات لكن جاينيس كلام قيامي كرو قفك هذه أوريجينا يو إيوان كيسا وإن يسدح بلود ciwaankaasi xagga laga isticmaalo oo qofka Soomaali joogo oo ka baxa laakiin 3 bilood ama 4 bilood inuusan Soomaali laga soo galin ama difaasidii hore lagu isticmaali jiray lagu isticmaal 3 bilood marka ku dhahaayeen waxa waa waqtiyada oo fiisaha la ogol yahay wadan ku joog in la qaato inta ugu badan 3 bilood ugu badan oo qofka fiisa wadan ku joog ahaan uu isticmaali karaa tusaalahan waxay fiirinayaan qofkan xamar oo joogay shalay uu soo duulay wuxuu imaaday Mareykan oo imaaday hore location-kaaga laga bedelayo waxay dhaayaan qofkan 3 bilood oo jaanis lagu siinayaa oo location-kaaga lagu bedelayaa 3 bilood kadib location-kaaga bedelayaa marka waxa filayaa dad fara badan in ay mataqaana fahmin in barnaamijyada Soomaalida iska daba qeelinayaan qof wuxuu joogaa Faransiiska wuxuu arkayaa creativity program beta oo arkaya markaas wuxuu u maleeyaa adduunku dhan inuu wada furiyo markaas wuxuu leeyahay wasoo duubaya maxaa la sheeg barnaamijkana la keenay uu cusub yahay qof walba sameeysan karo qof walba sameeysan karo beta marra oo sameysnaa dad noolaha waxaa kaloo jiray fund barnaamij loo creator fund jiray creator fund waxa waaye dadku waxay anfacaysaa qaab laami oo kaleeto
oo views badan haysto oo halka muuqaal soo dhigo 5 milyan 10 milyan 20 milyan ee daawanayso qofkaas oo kaleeto lacag badan uu ka sameynaya maadaama oo sintiyaashaas oo aruura wax badan ay noqonayaan laakiin qof oo marka wow dhaho oo qof oo soo caayo ama qof soo qaawiyo ama qof oo soo dhigo oo la daawanayo half million ama million la daawanayo sintiyaal oo ka sameynaya waa hal sent 0.0001 cent oo ka sameynaya laakiin qofka views ka badan haysto lacag badan oo ka sameyn karaa creator foundiga laakiin beetahan waa uu ka duwan yahay qofku waxa laga yaabaa isku celcelis ahaan bishii ugu yaraan $300 inaad ka sameysid maxaa la sheegay TikTok adigoo isticmaalaya barnaamijkan program beetaha marka waxa filayaa hadii aad ka faa'iideysatay waa ka imaata dhanka TikTok qaybta hoose ee comment igu qor in aad ka imaata dhanka TikTok iguna dhiirigeli like share iyo hadaan u cusubtaan subscribe ka mugaanin waxaan idin rajaynayaa IT horumar leh ama in aad mataqaana dhanka maskaxda ay ka sii kortaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh